مدن مدحويني وحمانت شرف نواه إن النوجو تيمادو كورمير شقو حارونتا تاليسكا عيداً كإلالة حيبها جمهورية الصوماليلاند شرف إيوه هيبد أي نقطة هاي عادي عادنا مدن مدحويني وأنو كاغا مهد علينا مدن مدحويني سيدا الله سعوتو عيداً كإلالة حيبه وحو مسؤول كي هاي إلالينتا أمانكا يبد غبكا حيبها يبدا جودهان جمهورية الصوماليلاند مدن مدحويني حيبة الصوماليلاند waxay ka kooban tahay 850 kiiloomitir oo dhinaca dhererka ka bilaabanta Looyacado ilaa iyo Qow oo u jirta 8 Qow waa dhinaca bariga Looyacadana waa dhinaca galbeedka meesha Qow la yiraahdo waxay u jirtaa 18 kiiloomitir airportka magaalada Boosaaso marka Qow la joogo Boosaaso waxay u jirtaa 18 kiiloomitir airportku marka uu Boosaaso galbeedka xiga 10 kiiloomitir ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland midna madaxweyne wuxuu daboolay dhamaanba baahiyaadkii asaasiga ahaa ee dhinaca nabadgelyada ee looga baahnaa badda iyo xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland midna madaxweyne kamay dhicin wali badda iyo xeebta Soomaaliland midnaba budcadbadeed iyo falalka argagixisadu midna kama dhicin amarkii ay badartii baan u dhicin iyo feejignaan oo la yimi ciidanka ilaalada xeebaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland midna madaxweyne qaab dhismeedka ciidanka ilaalada xeebuhu wuxuu ka kooban yahay 4 saldhig iyo taliska guud ee aynu maanta joogno 4 saldhigga koobaad waa Berbera saldhigga labaad waa Saylac saldhigga saddexaadna waa Maydh saldhigga afraadna waa Laasqoray waajibaadka ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland midna madaxweyne waxa weeye ka koowa ilaalinta iyo sugidda ammaanka xeebaha iyo badda Jamhuuriyadda Soomaaliland la dagaalanka budcadbadeeda la dagaalanka ururada argagixisada ee abaabulan la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada la dagaalanka hubka iyo rasaasta sharci darrada ama kontrabaanka la dagaalanka tahriibayaasha la dagaalanka maandooriyayaasha oo badaha aad uga yimaada ama laga dhoofin karaba la dagaalanka dhoofinta khayraadka dalka haday macdan tahay iyo haday ugaadha tahayba iyo la dagaalanka dambiyada badaha ka gudba midna madaxweyne xagga badda waxaan xuduud kale leenahay dalka Djibouti Yemen iyo Sacuudiga oo aan istaguna naga dheeray waxqabadka ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland haddaan soo koobo sanadkii naga tagay waxa la sameeyay oo ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu sameeyay 75 hawlgal oo dhinaca badda ah kalluumaysi sharci darro waxa lagu qabtay 31 doonyood ayaa lagu soo qabtay dhamaantood waxa la horgeeyay sharciga oo waliba u badan dhinaca wasaaradda maaliyadda waxaana laga gutay waajibaadkii iyo wixii xaq loogu lahaa in la mariyo hubka waxa la qabtay 12 bisha 3 2024 waxa la qabtay 40 qori oo ah AK47 waxay kaga soo degan si sharci darro ah dhinaca xeebta Saylac rasaas waxa la qabtay 12 bishii koobaad ee 2024 17,850 xabadood oo rasaas ah nooca loo yaqaano BBCga rasaastaasi waxay ku socotay meel ka baxsan dalka Soomaaliland waanu soo amaankeedii ciidankaana si buuxda u la wareegay oo gacanta ku haya dambiilayaashii rasaasta waday markii ay ogaadeen in lagu soo baxay way carareen waxa laga qabtay hal mid oo kaliya midna madaxweyne maadaama ay xeebtu dheer tahay oo aan la wada dabooli karin waxa si buuxda ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wala shaqeeya dadka deegaanka xeebaha dhamaantood waxay hayaan lambarada iyo ciwaanada lagala soo xidhiidho ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland
markay wax ogaadaan ama arkaan si toos ay noola soo xidhiidhaan waxyaabahan ay ciidanku qabtay ku guuleystana gaar ahaan hubkii rasaasta qayb ay ka ahayaan dadka deegaanka xeebaha jooga mudane madaxweyne waxaa jira qaxoontiyo badan oo ka yimaada dhinaca badda sanadkii markay naga tegey ee 2024 waxaa badda ka yimi qaxoonti 1715 qof waxayna kala ahaayeen 877 qof waxay u dhasheen dalka Yemen 828 qofna waxay u dhasheen dalka Deriska nahay ee Soomaaliya 8 qof waxay u dhasheen dalka Suuriya hal qof wuxuu dhashay dalka Itoobiya hal qofna wuxuu ahaa reer Soomaaliland marka 1715 qof ayaa xeebta ayaa badda qaxoonti ahaan ka yimi waxaa jirta mudane madaxweyne hay'ado shisheeya oo aan wada shaqayn leenahay haddaan nahay ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland hay'adahaasi waxa weeyaan 6 hay'adood oo shisheeya waxa ugu tun weyn oo ugu horeysa hay'adda EU CAP European Union Capacity Building oo halkan xafiis ku leh waxa kale ayadana wada shaqayn leenahay hay'adda IORIS oo Indo-Pacific Regional Information Sharing ayadana macnaheedu yahay hay'adda UNODC United Nations Office on Drugs and Crimes ayadana weeye hay'adda la yiraahdo BOH waa British Office in Hargeysa weeye isaguna hay'adda IOM waa International Organization for Migrations iyo hay'adda la yiraahdo MAG waa Mine Advisory Group intaas oo hay'adood ayagana wada shaqayn ayaan leenahay mudane madaxweyne adduunku sida la socoto aynu ku noolahay marka la xisaabiyo boqolkiiba 17 waa bad boqolkiina 29 keliyana waa berri sida daraadeed baddu waxay ka khatar badan tahay berriga sida daraadeed waxaan codsanaynaa in baahiyaadka ciidanka ilaalada xeebaha kor loo qaado imika waxaynu maraynaa stage-kii ciidanka ilaalada xeebaha ka marka laga gudbo ayaa la noqdaa ciidan badeed neefi loo gudbaa marka si talaabada labaadna loo gudbo waxaanu rajaynaynaa muddaxileedkaaga madaxweyne inaanu ka gudbi doono ilaalada xeebaha oo aanu noqon doono ciidanka badda oo rasmi ah aad iyo aad baad u mahadsantahay madaxweyne